halkan aad u jeedaan waa magaalada Xamar waa caasimadda qaranka Soomaaliya waa halka loo soo shaqo tago waa meesha qof walba ku riyoodo halkaas oo qof walba uu jecel yahay inuu nolol raaxo leh ka helo noloshaas qaabab kala duwan ayaa loo raadiyaa qaababkaas si aan u ogaano waxaan u baahanahay inaan dhex galno magaalada Muqdisho oo soo ogaano qaar ka السلام عليكم أدر. وعليكم السلام أدر. ورنيه واديك غوريغان فيرفيرنا يا ماندو من دنبا كا سو غشاي. ها دنبا iga soo gashay. Danta gurigan 30 sano aan la degin ka soo gashay maandho maxay tahay? Waxaan rabaa inaan dhisto. Oo adeer, cidii gurigan lahayd ma batiide. Adeer, waxaan rabaa gurigan inaan ku dhisto ku habso. War Ilaahay ka cabso. dhulkaan aad arkayso dadkii lahaa dhintay oo nool ah kama warqabtid adeer oo gacaliya dhulkaan islaameed ka leexo yaan uqba iyo nafsi ka raacin adeer cid waana ku weydiista ma laha soco dadkaan lagama eed beelo qof walba meel buu iska qabsanaya waa dalkeena wax burburiyay xaq baa ka soo bixi doona يا أقول يا رأي أنيقا وقاعد يرتبطنا يوليا كان هذا حرتين قوة كلا ينك بحايا هذا نكبتي ذا يا سيعمله سان معقول ماين قرباني تورايا بس كده توريدا وإذا تجايا بس كده توريدا وإذا تجايا يلا الحمد لله خف يا بي ماذا
warheedhe maxaa ku helay gudaha kabtayda xataa way ka soo reebteen ayaga ayaa ku jiro waa la joogaa gudaha dad badan baa joogo soo qaad walaal kabtayda ii soo qaad waa baxaya walaal waa ku baryaa kabtayda ii soo qaad hal mar kabtayda ii soo qaad orod wejigiisa cabsi fara badana ka muuqato tago gudaha maxaa ka jiro waatana kabtaadoon kuu keenay tan kalenta maxay taa cabsidan kuuga jirta anaga ilaah baana dili kare bini'aadam wax nagama qaadayo waxaa la aqoonaa joogo kabta xataa kale iga saareen waxa dhaca waayaabe bis waa ani waa socdaa bis way ani waa baxay meeshan joogis male walaal waa baxay aniga war cabsidii iska daayaan ku dhah kabtaada meesha ayaan ka soo qaaday walaal naga raali noqo waxaan ku noqonayaa inaad waanadeyda qaadataan walaal waan qaadanaynaa inoo sheeg waxaan adinka iyo qof walboo dhallinyaro ah aan ku waaninaya inaad qalad ama gef aad wax ku doontaan ilaahay waxuuna siiyey haddaan nahay dhallinyaro awood iyo lixaad aan wax walba ku qabsan karno haddaan awooddaas aqli ku darsanno oo aan si wanaagsan u isticmaalno waxaan anfici karnaa dalkeenna dadkeenna waalidkeenna iyo weliba sidoo kale nafteenna waayo adduunku wuxuu horumar u gaaray waa dhallinyaro iskaashatay haddii aynu iskaashannin wax walba waynoo hagaagayaan sidaa darteed waa inaad tusaale wanaagsan u naqannaa jiilka inaga dambeeyo dhallinyaro sidaas darteed ma isku raacnay inaad dalkeenna dadkeenna iyo nafteennaba aan wax u qabanno filimkan waxaa soo saaray hadaf production